kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warbixin kooban oo aynu idinka diyaarinay madaxweynihii hore ee Masar Maxamed Anwar al-Saadaat oo ay warbaahintu reer galbeedka u taqiinay geesigii dagaalka iyo kii nabadda. محمد أنور السادات وحاو كل شيء تولد ميات أبو الكون كترسن دقمة المنوفية يدلك مصر تاريخ مركي هتشان إلى واتك سبتمبر كوني سجال بقول سديد يطبنكي قيس كيزوح أو كم ناس دحي يطبن ولا لا هو السودانية دا يو أبا مصارية أنور سادات أبي سوحة وقراء كها إثبت الكعيد كإيجار كوها عيد مدي مصاري دا يكوسق نادلك السودان sanadkii 1925 ayuu Suudaan ka soo laabtay Anwar Saadaat aabihiis kadibna waxa uu ku biiray qorayaasha tuulada isagoo markii dambana u wareegay iskuulka Al-Aqbat ee ku yaal Duuqa sanadkii 1925 kadib waxa loo wareejiyay xabsiga lagu magacaabo Maquusa waxaana loo sii wareejiyay xabsiga Al-Zaytuun ee u dhow magaalada Qaahira wuxuuna ka baxsaday xabsigii sanadkii 1944 Saadaat ayaa dhuumalaysanayay intii u dhaxaysay 1944 ilaa 1945 markaasi uu xukunkiisa u dhamaaday waxa uu ka qayb galay Anwar Saadaat urur sir ah ururkaasi oo khaarijin jiray madaxda Ingiriiska waxaana lagu eedeeyay dilka sarkaal sare oo masaari ah oo lagu magacaabi jiray Amin Abbas kaas oo saaxiib la ahaa Ingiriiska aadna u taageersanaa joogitaankooda masaarida 31 bilood markii uu ku xirnaa xabsi ayaa la sii deeyay kadib markii dambi lagu waayay waxa uu ka soo shaqeeyay saxaafadda isagoo sidoo kale ka soo shaqeeyay shaqooyinka xorta ah 15 Janaayo sanadkii 1950 ayaa waxa uu ku laabtay ciidamada qalabka sida sanad kadib 1951 ayaa waxa uu Jamaal Cabdinaasir u doortay inuu ka mid noqdo guddigii soo qaban qaabinaya aasaaskii saraakiisha Afgambiga boqorka kaga tuuray xukunka waxa uu ka qayb galay Saadaat kacdoonkii Luulyo 23 kadib markii uu dhintay madaxweynihii Jamaal Cabdinaasir Anwar Saadaat waxa uu ka hadlay telefishinka wadanka وعاونا شعب كلام مصر وشاقي إنه لنتي مدحوين جمال عبد الناصر انتي وحكم كهي جمال عبد الناصر وحو أنور سادات سوق بتحل البضن سنة يكون يسقال بقول سدحي كنتكي وحو أساسي أنور سادات ورقيس كالجمهورية استقوى تفترك النقضي سنة يكون يسقال بقول شني كنتكي وحو حكايها وجود كالنقضي كولا لوجو مجعابي جري كولا كإسلامي جاء لقبتي سنة يكون يسقال بقول تضبي كنتكي وحا الله مجعابي وزير الدولة kadibna xogayaha guud ee midnimada qaranka sanadkii 1964 waxa uu noqday madaxweyne ku xigeenka Masar sanadii 1966 1969 iyo 1970 waxa loo doortay inuu ka mid noqdo kulanka guud ee hanti wadaaga Carbeed 7 Oktoobar ee sanadkii 1970 ayaa waxa uu golaha fadhiga ummadda u ogolaaday in loo sharaxo Maxamed Anwar Saadaat madaxweynenimada wadanka markii uu Jamaal Cabdinaasir dhintay محمد أنور سادات وحا مصر كتليني انتي او دحيسي 1970 إلى 1961 markii uu dhintay hogaamiyihii ka horeeyay Jamaal Cabdinaasir 28 December 1970 Anwar waxa uu kamid ahaa saraakiishii ciidamada Masar waxa uu kaloo kamid ahaa dadkii kiciyay kacdoonkii Luulyo ee 1952 waxa uu soo celiyay xisbiyadii siyaasiga kadib markii la joojiyay iyadoo joojinta axsaabta loo adeegsaday in ay kiciyeen kacdoonkii Masar waxa uu aasaasay xisbiga dimuqraadiga madax ayuu ka noqday waxa kale oo ka qayb qaatay aasaaskii xisbiga shaqaalaha waxa lagu tiriyay Anwar Saadaat inuu ka mid yahay hogaamiyaashii ugu muhiimsan ee soo maray Masar iyo carabta taariikhda cusub Anwar Saadaat waxa uu ahaa madaxweynihii saddexaad ee Masar kadib markii Masar ay isku bedeshay jamhuuriya iyadoo markii hore ay ahayd boqortooyo waxa madaxweyne ka noqday madaxweynihii dhintay Maxamed Najiib oo noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Masar waxaana ku xigay hogaamiyihii Jamaal Cabdinaasir markaa kadibna waxa ku xigay madaxweyne Maxamed Anwar Saadaat sanadkii 1977 ayaa Anwar Saadaat waxa uu qaaday dagaal si uu u soo celiyay jasiirada weekaha Sinai ee ay qabsatay Israa'iil dagaalkii 6 maalmood socday ee qarxay sanadkii 1967 waxayna Masar ku guuleysatay dagaalkii 1973 in ay soo ceshato 15 kiiloomitir oo ka mid ah jasiirada weekaha Sinai ugu dambeyntii waxa uu ku guuleystay in uu Sinai oo dhan soo ceshto wuxuuna dib u furay kanaal Suez Anwar Saadaat ayaa gilgilay kalsoonidii Israa'iil ee xoogeeda ciidan waxaanu kor u qaaday kalsoonidii Masaarida iyo Carabta waxayna wadada u furtay heshiiskii nabadda ee ay kala saxiixdeen Masar iyo Israa'iil
waxaana markaas reer galbeedku ay Anwar Saadaat u aqoonsadeen geesiga dagaalka iyo nabadda. 9 November 1977 waxa uu sheegay Anwar Saadaat inuu diyaar u yahay inuu aado Israa'iil si ay ugu wada hadlaan nabadda. isla markiiba Israa'iil ayaa diyaarisay martiqaadka Anwar Saadaat iyadoo u maleynaysay in hadalka Saadaat uu yahay hadal aan run ahayn oo uusan kaga dhabaynin. intii uu Anwar Saadaat magaalada Qudus u dhoofin waxa uu u safray Suuriya si uu madaxweynaha Suuriya Xaafid al-Asad ugu soo qanciyo ka qaybgalka heshiiska iyo taageeradiisa, laakiin madaxweynaha Suuriya ayaa diiday isagoona ku yiri Anwar Saadaat maalmaha soo socda ayaad cadeyn doontaa in aad qaldan tahay. 19 November 1977 ayaa Anwar Saadaat waxa uu booqday Israa'iil taasoo adduunka oo dhan ka yaabisay. madaxweyne Anwar ayaa markii uu tagay waxa uu ka soo jeediyay Israa'iil khudbadiisii caanka ahayd. waxa uu dhamaaday xukunkiisii markii la dilay isagoo u dabaaldegay sanad guuridii ka soo wareegatay dagaalkii 6 Oktoobar. Anwar Saadaat ayaa geeriyooday 6 Oktoobar 1981 halkaasoo nin lagu magacaabi jiray Khalid al-Islaambuli iyo rag kale ay xabado ku fureen markii ciidamadu ay dowlad-tuska sameynayeen. isagoo kursigiisa ku fadhiya halkaas ayuu ku dhintay madaxweyne Anwar Saadaat. waxaa halkaas inooga eeg warbixintii gaarka ahayd ee aynu idinka diyaarinay madaxweynihii saddexaad ee Masar Maxamed Anwar al-Saadaat. tan intii aynu kulmi doono barnaamij noocan oo kale ah waxaynu idinka tagaynaa sidaa iyo amaano Allah.